Bill Gates oo ahaa ninkii ugu taajirsanaa caalamka ayaa mar la su'aalay su'aal ah: ma jiraa qof adiga kaa taajirsan? Waxa laga filayay ayaa ahayd in uu maya ku jawaabo, balse Bill Gates ayaa yiri, haa, wuu jiraa qof aniga iga taajirsan. Markaa ayaa la weydiiyey, waa kuma qofka adiga kaa taajirsan? Bill Gates ayaa ka sheekeeyay sheeko qayb ka ahayd sheekooyinka noloshiisa, wuxuuna yiri, inta aanan noqon qof caan ah oo hanti haysta ayaa maalin waxaan la kulmay nin joornaal wareejinayay. Waxaan damcay inaan ninkii ka iibsado joornaalka si aan u akhristo, balse waxaan jeebkayga ka waayay lacag aan ku iibsado joornaalka. Laakiin ninkii oo fahmay inaan lacag haysan ayaa joornaalka i siiyay. Waxaan ku idhi, lacag ma haysto. Wuxuu iigu jawaabay, dhib ma laha, lacag la'aan ku qaado. Mar kale oo ay muddo qiyaastii 3 bilood ah ka soo wareegatay ayaan haddana waxaan la kulmay isla ninkii joornaalka wareejinayay. Haddana sidiisii la mid ah, lacag ma haysan. Ninkii ayaa i siiyay joornaalka. Waxaan ku idhi, lacag ma haysto. Wuxuu igu yiri, lacag la'aan ku qaado. Markaa ayaan idhi, waad khasaaraysaa. Wuxuu igu jawaabay, ma khasaarayo, lafaha waan haystaa, faa'iidadayda ayaan ku siinayaa. Intaa kadib waa la joogay. Muddo ayaa la joogay. Aniga waxaan galay halgan hanti raadis ah. Mar ay ka soo wareegatay 19 sano oo aan noqday qof caan ah oo hanti haysta, ayaan ninkii xasuustay. Waxaana bilaabay inaan baadigoobo si aan abaalkiisii ugu gudo. Raadin dheer kadib waan is helnay. Waan la kulmay. Waxaan ku idhi, miyaad i garanaysaa? Wuxuu igu jawaabay, haa, waan ku garanayaa, waxaad tahay Bill Gates. Waxaan idhi, ma xasuusataa ixsaankii aad ii samaysay iyo joornaaladii aad lacag la'aanta igu siisay? Ninkii ayaa yiri, haa, waan xasuustaa. Waxaan dhahay, maanta waxaan ahay qof hantiile ah. Waxaan diyaar u ahay inaan abaalkaaga kuu gudo. Iga dalbo wax allaale waxa aad rabto, waan kuu samaynayaa. Ninkii ayaa dhoola cadeeyay, wuxuuna igu yiri, maya, iima samayn kartid waxa aan rabo. Markaa ayaan idhi, waan kuu samaynayaa, horta ii sheeg. Ninkii ayaa igu dhahay, aniga markaan ixsaanka kuu samaynayay waxaan ahaa faqiir. Si aan ixsaan kuugu sameeyo lama sugin inaan hanti helo. Adiguse maanta waad rabtid inaad abaalka ii gudo. Waxaad tahay hantiile. Si aad wax iigu samayso waxaad la sugtay ilaa aad hantiile noqotid. Sidaa daraaddeed ma awoodid inaad abaalkayga gudid. Markaa kadib aniga waxaan xaqiiqsaday inuu jiro nin aniga iga taajirsan, sidoo kalena ka taajirsan cid kasta oo lacag haysata. Waana qofka kuu quura inta uu xoolo ka haysto. Deeqsigu ma aha midka suga inuu hanti helo si uu deeqsi u noqdo, ee deeqsiga waa midka quura inta uu xoolo ka haysto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe channelka Hanti Media. Sidoo kalena taabo calaamada gambaleelka si aad u rukumatid muuqaalada kanaalka la soo geliyo. Like saar haddii uu ku qanciyay muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.